waxaan idinku yeeray inaan laba saddex kalmadood oo hadal ka idhaahdo oo ku aadan hadallo maalmahan aan maqmaqlaynay warbaahinta kulay waxyaabaan ka daawanaynay waxaan dhawaan ka maqmaqlayay warbaahinta iyadoo la leeyahay jabhado ayaa laga sameeyay meel galbeedka kamid ah dhowr jeer baan arinta warbaahinta ka maqlay dhowr jeer baan arintaas warbaahinta ka maqlay waxa dheeray inta waliba inaan arko rag hadlaya oo niman mas'uuliyiin hore ahaaya oo waliba raggii ugu waqtiga dheeraa Soomaaliland kuraas inta ku fadhiyaan ugu badnayda oo aan 2 sano ka sii wada maqnayn kuraasida ay fadhiyeen yaan maqlay hadalkooda oo aad u taagtaagan markaas hadal xajiimaysan warbaahinta marinay baan maqlayay runtii aniga dad badan kale ma aanan jeclaysan arinta waxaan leeyahay war waa laga qurux badan yahay kullu idinka ma aha nimankii laga filiyay makana saa yeeshaan way haday qadoodi tahayna maanta ma jiro hore u jiray oo meedaan sheegin haduu dharag jirin hore u jiray ka ku fadhideen buu ahaa idinku marka joogteena barwaaqo maaha marka ka tagteena maaha in bilaay dhacday oo dadka ku tiraadaan waxba la waayay iyo waxba naga maqan iyo qayb baa la doonaya iyo wax la mid ah inta kaga baxaya waxaan 11 bishii 10aad oo shalay ku beegneed ku arkay warbaahinta niman qoriyeysata oo la waxaan nahay jabhad heblaan la yiraahdaa oo waxaan dagaalamayna waliba leh booramaha ka baxaan wixii ajaanibi taasoo malaa ula jeedeen dadka wixii aan reer boorama ahayn iskaga baxaan waxaan leeyahay warta haddaad dagaalamaysaan haddaad meel qabsanaysaan iyo haddaad boorama dadka dareerinaysaan iyo haddaad kharibaysaan iyo haddaad burburinaysaan idinka idin taalla xor baad u tihiin laakiin waxaan idin odhan lahaa 2-3 kalmood guud ahaan reer awdan nin baa wuxuu yiri inkastoo bustaan lagu dado bixiti loo diido marun bay bayaamaan wixii bari la sheegaa wax soo baxaya oo muuqmuuqanaya hada la oran jiray reer awdal ma aaminsana Soomaalilandnimada iyo wax la mid ah aad baad muddo inuu soo baxaya dooyinkii dambe sababta keenta mar been xitaa dhowr goor la arkay in calan yaro marayro buluya la soo baxo oo sidii nuclear ka dhacayo dad ay kala soo baxeen magaalada oo lagu hanjibo waxaan oran lahaa ama leeyahay warda waa qaldanteen malaha hadda waxaan idin sheegaynaa Soomaaliya dadka kala gooyay waa annaga waa isaaq Soomaaliya isaaq kala gooyay walina aan ogolaan in la isku daro haddaan ku tashano in la isku daro saacad nagu qaadan mayso Soomaaliya in la isku daro ilaa kismaayo galka dambe isu imanay waliba waxaan iyadoo Soomaaliya joogto warqad cad ku qoran karayna inaanu nidhaahno madaxweynaha Soomaaliyeed ama ra'iisul wasaaraha Soomaaliyeed ilaa waliga waan insaaqa oo shuruud ka dhigi karana laga yeeli laakiin cid kale taa yeeli karta ma jirto oo shuruudda maanta Soomaaliya ka qaadanaysa ma jirto annaga ahayn annaga yahay in laga qabqabto oo la war ka daaya oo midnimada Soomaaliya dib isugu noqonaysa ka daaya oo ha ku celinina oo annaga laga maslaxo laakiin annaga lagu bajiyo adar waa arrin waa abdo qalad xisaab wax qaldan bay isu geysatay cid kasta annaga arrintan lagu bajisay waxaan oran lahaa reer awdalahan aan leeyahay war idinku meesha aad u hanqal taagaysaan waxba idinkaga ma horeeyaan halkii wasiir baan kaga horeeyay halkii wasiir ayaan kaga horeeyay shanta wasiir ee halkan yaala halka ma yaalin iyo madaxweyne keenan cidina la hadlin halka ma yaalin tan ay idinku badinaysaa annaga naga maslaxa midnimada Soomaalida laakiin annaga hanagu bajinna ma nadleer waxaan idin raacin lahaa kale booramada aad leedin ka baxa dadka ajaanibka ka baxa ummadii idin la joogtay ardayda lahayd Soomaaliyeed ajaanib ka dhigaystaan ka baxa leedin 3,000 arday ka badan baa boorama degan oo jaamacad ka dhigta oo afii ka qaadaan oo kira guri ka qaadaan oo cunto ka qaadaan oo baska ka kiraysan
stationary idin keebsida oo telefoonada idin keebsida oo wax idin ka gata iyo intaas qoys oo Soomaaliyeed oo degan idin ka guuraan kaliya ma noqon doonto reer kaliya meel ku noqdeen aad raxmo kordhiyo xabis ma kordhiyo xadro la ka daaya magaaladiina dadka ugu ladan baa ku jirtaan ama reer Soomaaliland ugu ladan baa ku jirtaan reer awdalo xurmada reer beelaadina dhawn haw yeeranina ha u baahanina belaayo aan idin dhaweynina u yeerataan cid idin gumaysatay iyo cid wax idin geysatay iyo cid wax idin ka qaaday iyo cid wax idin ka maqay midna ma jiro ha u yeeranina belaayo aan idin dhaweyn ilaahay nooma keen ka daaya dadkan idin la joogan cagaj kuleynta iyo baqagelinta qarankana aad hadidaad ka daaya qaranka musabbix ma laha qaranka in ka badan dad ka badan baa ilaashanaya oo leh ha muuse hadda sidii madaxweynaha idinka idin jirta laakiin qaranka inaa hadadaan idinka iyo qarkiintoona laga yeelmay